habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada daqiiqadaha wararka Afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah taariikhduna waa 28 November sanadka 2023 qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah deegaanada SSC Qaatumo oo maanta laga bilaabay qaadista canshuuraadka shacabka laga qaadayo dadka canshuurta bixinaya ayaa isku garbinaya inay lacagta bixiyaan konton baabuur oo kuwa xamuulka oo ku xayiran wadada Wajeer iyo Mandheera u dhaxaysa fatahaadaha Soomaaliya ka jira oo qasaaraha ay keeneen oo maalinta ka dambeysay ay sii badanayaan bal aan wada eegno dhibkii ka dhacay deegaanka ilma adeer la yiraahdo oo ku yaala gobolka Nugaal halkan baan deganayn markii daadku masaameeyay iyo ka horba dad badan oo Ilaahay nagu nabadgeliyayna waa jirtay halkan alaabtii aan ku ganacsan jirayna waa biyihii baa iga qaaday Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre iyo safiiro caalamka ka socda oo gaaray duleedka magaalada Kismaayo oo ah goob ay ku soo barakaceen boqolaal shacab ah oo deegaanada gobolka Jubbada Hoose ka soo cararay odayaal al-shabaab la shaqeyn jiray oo isa soo dhiibay waxay ka warameen shaqadii ay haan jireen iyo xaalkooda sidoo ahaa waxaan ku aansaday inaan ka soo tago isa soo dhiibo dawladda Soomaaliya xamar aan soo galo xamarna dawladda joogta isaga noolow maaha idan dawladdu ku ogeyn haddaan eemidna waxaan la xiriiray dawladda dadka mas'uuliyadda ah oo dawladda ka tirsan la xiriiray waana leegeeyay dawladda gacanta leegeliyay dawladdiina dhibaato iyo dhaqan xumo mid aan kala kulma jiraan waa la soo dhaweeyaa meelaha la fadhiisay cunto macaan la siiyay afmadow dadkii barakacay ayaa warbaahinta la hadlay waxaan nahay dadkii afmadow ka soo barakacay baan nahay bisha 20keed ayaan ka soo qaxnay afmadow meel la yiraahdo garoonka ayaan joognaa mujaaca way iska jirtaa xanuun way iska jiraa biyo la'aan way iska jirtaa biyaha nijaas ilmaha ku nijaasoonayaan waan iska cabaynaa wararka caalamkana waxaan idin haynaa in ka badan 40 qof oo la baadigoobayo dalka Hindiya kadib markii uu ku dumay god ay ka shaqeynayeen wahagaag aan ku bilaabay deegaanada SSC Qaatumo maanta waxa si rasmi ah uga hirgalay bixinta canshuuraha taasoo noqonaysa dakhliga maamulka SSC waa markii ugu horeysay oo nidaamka halkaasi ka jira uu bilaabay inuu dadka canshuur ka qaado dadku niyad fiicni ayay ku bilaabeen maanta iyaga ayaana tegayay xarumaha canshuurta wayna isgarbinayeen oo way ku tartamayeen bixinta lacagahan ama kamid ah ganacsatada laascaanood qaybta shidaalka magacayga waa Cabdi Musabbasaan inaan si nadiif ah waan ku qanacsanahay boqolkiiba 500 ku qanacsanahay inaan u bixiyo lacagta cashuurta anoo wali ku qanacsan oo wali xataa soo lugeeyo oo ku imid kastanka wala jacayl iyo muxubba aan u qabo inaan dalkayga wax geliyo oo hadaan ku soo in badan markaa wax ku cashuurayay anoo niyad xun baa wax ku cashuurayay laakiin maanta anoo niyad wacan oo raalli ku ah waliba aad ugu sii faraxsan ayaan maanta halkaa yimid shidaalka baan cashuurtay waa la soo dhaweeyay dadkayga baan la joogay oo meesha fadhiyay shaqaalihii askartii dhammaan laamihii magaranaysaa cashuuraha dhan ay joogay meesha marka aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waana wadaynaa wixii cashuur ganacsatada kale waxaan leeyahay dalku waa cashuur in la bixiyo wax ka soo leelo hantidaada un baad ku xilbaxdaa waxaanu leenahay umad maanta waxba kaga bixi karaa hal la bixiyo cashuurta hal loo hoggaansiya maamulka wahagaag wararka fatahaadaha aan bilowno konton baabuur oo kuwa xamuulka ayaa waxay ku xayiran yihiin wadada u dhaxaysa Wajeer iyo Mandheera qaarkood raashin bay geeyeen qaarna way maran yihiin maciishadiina cirka ayay gashay muuqaalkan ila daawada iyadoo xilli habeen ah ay baabuurtan saf ugu jiraan jidka dhiiqada ah ee dhulkaasi kala xiray wahagaag odayaal shabaabka la shaqeynayay gobolka Galgaduud muddo dheerna halkaasi joogay ayaa isa soo dhiibay dawladda keentay hadeer waxayna la hadleen warbaahinta iyagoo ka waramaya xaalkooda iyo marxaladihii ay ku shaqeyn jireenba waxaan ku aansaday inaan ka soo tago isa soo dhiibo dawladda Soomaaliya xamar aan soo galo xamarna dawladda joogta
isaga noolow maaha iyadoon dowladdu ku ogeyn haddaan eemidna waxaan la xiriiray dowladda dadka mas-uuladda ahoo dowladda ka tirsanaan la xiriiray waana laygeeyey dowladdaa gacanta lay geliyey dowladdiina dhibaato iyo dhaqan xumo mid aan kala kulan ma jiraan waa lay soo dhoweeya meelaha nala fadhiisiiyey cunto macaa nala siiyey qof wax naga hadlaysa bartoor iyo calaanka hor ma jirto waana nabad qabnaa waxaan kala kulmay dowladda soo dhoweyn iyo adigana soo dhowaaw wixii kaa dambeeya oo warkaa yeelaana sidaadoo kale waxaan anigu arkay inay arkaanaan rabaa wixii iga dambeeya aniguna soo dhoweynaan arkay iyo dowladnimo meelay ka jirto oo aan qof lagu xaqirin qof lagu xumeeynaan jooga kuwa nabadoonka ku ahay waxaan ugu baaqaa in mahan dowladu ka jirto dowladnimo ka jirto ixtiraamna ka jiro qof wax laga hadlayana isa jira wax dhibaato ah oo dheeftaas ka keena dadkiina xoolahaasaa laga rabaa sikaawaad maaliyad lacag kaloo muxuu ahaaye iyaduna infaaq la yidhaahdo ciidamo ilmo maxad loo dhigayo wax la baraya keena wahgaag wararka fatahadaha aan ku noqonno duleedka Kismaayo waxay xarun u noqotay kumanaan shacab ah oo maati u badan oo deegaanada gosha gaar ahaan degmooyinka Jilib iyo Jamaame ka soo qaxaya fatahado iyo biyo dhulkooda galay ay ka soo carareen Xamse Cabdi Barre oo maalmahanba Kismaayo ku sugnaa ayaa maanta waxa uu geeyay duleedka magaalada Kismaayo ee dadkan ay ku rafaadsan yihiin safiirada caalamka qaar ka mid ah ee dalka Soomaaliya jooga marka caalamka oo ay nagala joogaan saaxiibadeen international communitieska partners waxaan ugu yeeraynaa inaan ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah Soomaaliya maanta loola soo gaaro gargaar degdeg ah wax badan waxaan ka hadli jirnay in arrimaha humanitarianka aan uga gudubno dhinaca resiliency-ga iyo maxaan ku dhahaa xal waara laakiin maanta tanaa timid oo maxaan ku dhahaa mushkiladana timid Soomaaliya climate change-kan iyo waxaan adduunka dhibaatada ka jirta iyo kaarboonkaas qayb kama ah waxaan anagu cost garaynaa very little cost ka anagu aan cost garaynaa dhinaca marka la fiiriyo climate change-ga laakiin effect anaga yani saamaynta ka timaada anaga ayaa u nugul because anaga vulnerable marka taasa dhibaato nagu haysa caalamka marka waxaan ugu baaqaynaa in Soomaaliya la soo kaalmeeyo goboladan waliba sii daran yihiin runtii markastoo Soomaaliya laga imaado from the north to south markastoo mushkiladu ay sii badato waay midba midka kale ayuu ka sii daran yahay marka aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin waa mahadsantiin wahgaag degmada Afmadow meelaha laga dayrinaya ay ku jirtaa kumanaan qof baa magaalada ka qaxay duleedka magaalada ku rafaadsan yihiin warbaahinta ayayna la hadleen dadkan oo ka waramaya silaca iyo saxariirta haysata waxaan nahay dadkii Afmadow ka soo barakacay baan nahay bisha 20-keed ayaan ka soo qaxnay Afmadow meel la yiraahdo garoonka ayaan joognaa mujaaca way iska jirtaa xanuun way iska jiraa biyo la'aan way iska jirtaa biyaha nijaasa ma ku nijaasoonayaan waan iska cabaynaa xanuun wuu bilaabmay shalay dhaqaatiir baa noo timid xoogaa daaway noo keenay way nagu go'day dadka qaar baxya ma wataan dadka qaar raashin ma wataan waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inuu noo soo gaaro ilaa iyo miisaanka ilaa goolka ay la daadsan yahay wax bac wata ma laha habeen roob baa nagu daa maalin roob baa nagu daa wax raashin wata ma laha wax busta wata ma laha wax bac wata ma laha ilmihi kaneeca naga layse mujaaco oon arraad rafaad waa la rafaadsan yahay marka dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah noo soo gaaro bismillaah dadka waxaan nahay degmada Afmadow ka soo qaxay waxaan joognaa garoonka degmada Afmadow loo qoray maati fara badan ayaa ku soo qaxday dadku way baahan yihiin kanooyin ayaa jiraan biyalaan ayaa jirta marka waxaan u sheegaynaa dawladda Jubbaland inay dadkeeda u soo gurmato wahgaag wararkii caalamka aan aadno in ka badan 40 qof ayaa la baadigoobayaa dalka Hindiya kadib markuu ku dumay god ay ka shaqeynayeen waatan Shamis Xaaji oo faafaynta warkaas inoo haysa dowladda Hindiya ayaa waxay wadaa dadaalo ay ku soo samata bixinayso ama ku soo badbaadinayso ilaa 40 shaqaale oo uu la dumay god ay qodayeen waxa sidoo kale ay sheegtay in kal hore ay ku guuleysatay in 40 kale ay soo saarto kuwaas oo haatan ku jira isbitaalada xaaladooda caafimaadna halkaasi lagu dabiibayo
shaqaalaha gurmadka ayaa waxay ku dadaalayaan sidii dadkaasi ay u gaari lahaayeen iyaga oo durbaba qoday dhagxan iyo ciid ku hareereysnayd godka si markaasi halkaas ay u geliyaan tubooyin ay sii dhex maraan shaqaale si dadka ku jira godka hoostiisa loo soo badbaadiyo. ilaa iyo 3 mayl ayaa la sheegay in dhulka ay ka hooseeyaan taasoo ah halkii uu godka kula soo dumay. waxaa la sheegay goobta uu godku ku dumay inay tahay meel ay nugushahay in markasta ay dunto isla markaasina daadadku ay ku dhuftaan. godkani dumay ayaa waxa uu qayb ka yahay mashaariic waaweyn ee uu doonayo inuu fuliyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi, waxaana uu mashruucani qayb ka yahay mashaariic kale oo lagu dhisayo wado highway ah. dadka uu godka la dumay ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dad danyar isla markaasina shaqaale ahaa iyagoo qaata mushaaraad aad u yar. shaqaalaha gurmadka oo ay u diyaarsan yihiin hawlahoodii gargaarka sida ambalaasyo iyo sidoo kale agab ay doonayaan in godka hoostiisa ay ugu dhaadhacaan ayaa lagu arkayaa godka hareerihiisa iyagoo hawlahooda shaqana gacanta kula jira. maasani jamis daqiiqadihii wararka caawa intaas aan ku soo koobo. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. tan iyo kulan dambe nabadgelyo. faa'iidooyinka adeega ibesa send money dirista lacagaha withdraw money bixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawlaadaha ibesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ibesa goor kasta iyo goob kasta. macmi weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay? haddii aadan hore u maqal, Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid. waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha. haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa? Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka, waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan. Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad, Sahal, EFC Plus iyo M-Pesa Kenya. waxaad sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaaladda Tawakkal Express. haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo kuu samaysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagugu adeegayaa qiimo jaban. ilaahay baa caafimaadka bixiye. hamogaanin isbitaalka Healthgate Hospital. dhakhtarkii carruurta, kii cudurrada guud, dhalmada iyo ka warqabka hooyada, dhimirka iyo maskaxda, dhakhtarka lafaha, caafimaadka indhaha, intuba waa ku diyaar. weliba carruurta markay dhashaan dhalooyinka lagu koriyo ayuu isbitaalka Healthgate ku caanbaxay. isbitaalada waddankan ka jiraan waxaa ugu sarreeya level 6 oo ah levelka 6. Healthgate waa levelka 5. qalliinada degdega ah iyagana waxaa u diyaaraa dhakhaatiir 24 saac heegana. shaybaarka baadhitaanada cudurrada waa casri oo waxaa yaala qalab la hubo. nadaafaduna waa inoo muhiim oo haddaad bukaan ahaan u jiifato iyo haddaad saacado kooban joogtaba, Healthgate waa deegaan nadaafadda u saaxiiba. Healthgate waa xarun caafimaad. xaasha lilaahi waa xaqiiq oo soo booqo, isku daawee oo isku baar, ilaahayna kala saaro. isbitaalkan Healthgate qalliinka hadda maxaan suubinaa oo latest oo laser lithotripsy ah. marka qalliinkaas maxaa waaye qofka isagoo jirkiisa meelna laga jeexin ayaa dhagaxaanta laga soo saaraa. hamoogaan Healthgate Hospital oo ku yaala jidka weyn ee xaafadda Islii laga galo soo horjeedka Islii North Police Station, isgoyska ama roundaboutka Muratina Road.